السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتم معنا وناقصنا halkan naga daawan soo kiik camso madafishiyaal fadlan hadda timir korta soo boqoto subscribe saar videogana like saar aad iyo aad baad maasantay. maanta waa maalmihii hore ka duwan barnaamijyadii hore ka duwan maanta waxaan halkan tartan ku qaban doonaa 5 fanaan oo hortiina iman doona inay si sheegan magacyadooda iyo cid ay yihiin oo aanu waliba waa qiimeyn aanu sameynay 7 bilood u dambeeyay ama 6 bilood u dambeeyay ee 2020ga ye marka 5 fanaan ayaan ku soo qaantay Sony waliba si u kala fiiseereen xagga sare lagu soo bilaabto u fiis badan waxay noqon doontaa number 1 kaalinta koobaad ku guuleysay. Waatay guys heestii aan Khalid Kamil ee top 5 ka gashay waa heestii si qofteedii kumee oo soo xariisay milyan iyo 800 oo views. marka heestan waxay noqotay heesta top 5 kaalinta shanaad ka gashay kala sareynta 5 fanaaneen maanta ee soo soo qaadanay iyadoo ay ka tusi doonaan qayb kamid ah fiidiyogeeda marka nala daawasho wacan intaan dumarkugu qalday sidii waati qormiyo nolosha kula qaybsanay ee qalbigu yiri maahati qayrka way badantay. Hi guys, heesta kale ee gashay kaalinta afraadna waxa weeyaan heesta Sultan Seraar ee aga oo soo xaraysay 3 milyan iyo 100 views. heestaas oo noqotay heesta gashay kaalinta afraad marka laga soo tiriyo xagga kala sareynta views-yada inagoo xagga sare ka soo bilownay xagga hoosena u wadnaa iyadana si lamid sidii heesta Khalid Kamil xayeen waxoogaa clip video وير سعد ويا قروح سنتيدا قولكدا يدقي قروح سنتيدا قصبيقا ودني دقت قروح سنتيدا أو قشوعي قروح سنتيدا. heesta gashay kaalinta saddexaad top 3 guna waxa weeyaan heesta qamar sugan ee jacayl dhaxalgal wax dhaaman lawaa heestaas uu qaaday xaaskiisa taas oo soo xaraysay 3 milyan iyo 500 oo views. wow wallahi marka heesta qamar sugan baa iyadana difaacanaysa booska saddexaad si lamid ah iyadana labadii soo hor waxaan ka soo diyaarinay clip ama video muuqaal kamid ah heestan oo aanu halkan si toos ah idinku soo gudbin doono marka daawasho wacan oo wanaagsan. afkii duniga dararuni wa hurdana dabarkii tulkii qabuwa ibnuhu eridilan marlaydihi wa amaan ku dhigan iskii disiwa yabeel quruxlay dhamayn kariwa. kaalinta labaad soo gashayna waa nimcaan hinla heestan ka raysay bukaanadii taas oo soo xaraysay tiro dhan oo cadadkeedu tahay 3 milyan iyo 700 oo views waliba iyadoo wan montaala waxay heesaa kale kaga iskoor badan tahay. wow baan leenahay marka nimcaan hinla wala heestiisu aad iyo aad u kala kacsantay si lamid ah iyadana waxa kaayna muuqaal clip aynu soo diyaarinay waxa kale sugnaanu waa heesta kaliya finally waa kuma talow haddaan boqol jeer farxayn boqorani dunidaydi haddaan boqol jeer farxayn boqorani dunidaydi adaa ibadani qalbiga tila tahilajo. wow waasan heesta gashay kaalinta kooban number 1 top 1 heesta ugu sareysay waa xaqada ku luqeeya guulaysiin baajinta dunya waxay soo xariisay 5 milyan iyo 400 milyan iyo 400 oo views ay soo xariisay waana heesta scoorka number 1 aan cidna ka jabin 7 bilood ee 2020 iyadoo waliba taalay 5 bilood March la soo dhigay. wow waxaan leenahay fankii Soomaalidu hor buu kacay number 1 wax ku guuleystay baadiyaab mar la bixinayna brother qaadan laaban leeyahay. عبد بليو ضيح نوراي ضروريو ضيت هورتاي عبد بليو ضيح نوراي ضروريو ضيت هورتاي وبحد سنه ديريو دقي دعدو بيو جنة